afkaad arkaysaan. وايكل gabadha aad arkaysaan waa wasiiru dawlaha arrimaha dibadda Burtuqaan ayaana oo xidhan dharkiisii dhaqanka subeeciyadii xidhan dhacli weeye waa Burtuqaan ayaana waxaad arkaysaan waa wasiirkii waa madaxweynihii dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar waa ka wasiir Xabiib oo imika ka soo degay Asmara ka yimid Eritrea wafdi ka soo kaxeeyay guulo علي والله كويس Is he go? Ah, sir. بس عرشاء برتقال نعم
ساعتي ما قبل السنة هديلي مركب فريستان ما أعرف الله السلام عليكم ها أيه. هاي زين كل ما يقبل وفدقي وسو دغاي imika wuxuu ku sugan yahay airport ku sugan yahay waa qolkii martida airport halkan wuxuu ku bixin doonaa maxaa la yiraahdaa waraysi uu ku bixin doonaa gudoomiyuhu dadka badankiisii airportka magaalada waa la buuxaa magaalada meel walba labadii calankii ururka iyo calankii dawladda deegaanka Soomaalida lagu xardhay dad fara badan oo shacab fara badan baa dibadda taagan waxa kale dibadda taagan oday duqeyti dad fara badan oo meel kale ka yimid sida Kenya Soomaaliya wufuud badan oo ka timid baa joogta marka imika maadaama uu live yahay ayaan idin soo tabinayna waraysigana waxaan jeclaan lahaa inaad live u daawataan waxa uu soo jeedin doono gudoomiyaha admiral maxamed cumar cismaan waxa soo dhaweeyay waxa dawladda federaalka iyo dawladda kililka wada socda ayaa soo dhaweeyay halka kala socda Ya, yang mana? dadkii baa aad u fara badan airportka alaabadiisa dhinac xaggii VIP lounge-gi iyo meel walba dadkii way buuxaan waxaan sugaynaa inta uu ka bilaamayo shirku dad fara badan baa soo galaya dadkii controlkii baa waxa weeye badnida dadka aad u fara badan yihiin xataa kooxihii baa dibadda jooga wufuud fara badan oo imikana waxa soo galay cadaani baa soo galay عدانية صوغالي وحا صوغالي وفود كلا كوي أدسابة سيجوغ دانكاني كا صوغالي نوادار كيسان
bal nooga warbixi soo dhaweynta maxamed aadan soo fariist waxaan wareysanaynaa laba xubnood oo ka tirsanaa guddiga soo dhaweynta maxamed aadan soo fariista bal idinka guddiga ku jiray warbixintu sidee nasiya bal soo dhaweyntu say ahayd maanta ووزير كحجانك حفيظك خيرات هرمانية خيرات كبيها دولة دجان الصومالية مدن محمد عدن أيه maanta waxaa farxad ballaaran noo ah inaan soo dhaweyno ururka ONLF oo qaatay tubta nabadda kadib markuu 27 sano ka badan soo dagaalamayay marka maanta waxaa noo bilaabmay waa cusub oo ummadda Soomaaliyeed ee Itoobiya degto dhan isku duuban tahay farxad baan ku soo dhaweynaynaa iyagana waxaan leeyahay welcome wadankiina hooyo carradiina hooyo kaalaya horumarka ka qayb qaata si nabadgelyo ah xuquuqdiina ku raadiya waayahay weli waxaa socda salaamihii baa socda lama kala fadhiisanin dadku aad bay u fara badan yihiin wufuudda dhankii dibadda kuwii ka yimid kuwii gudaha joogay kuwii gobollada kale ee Soomaaliya joogay shirki jaraad weli ma bilaabin markuu shirka jaraad bilaabmaan ayaan idiin soo tabin doonaa iminka salaamihii baa socda junior aad baad u mahadsan tahay Kawsar waan kulaanta wasiir maxamed aadan Kawsar baa ku salaamaysaa xagan waxaad ku arkaysaa waa labadii dhinac ee dawlad deegaanka tii federaalka ahayd iyo tii ururka Jawxaba oo halkaas ku salaamaya injineer wasiirkana laftiisa Cabdi Fataax waxay weydiinaa Cabdi Saxiir Fariiso live baan ku jirnaa Cabdi Fataax maxaad u malaynaysaa soo dhaweynta maanta waa maalin taariikhi ah haye dadkii way madaysan yihiin Soomaalidu way ku madaysan yihiin idinkuna Soomaalidu ku madooba aad baad u mahadsantihiin haye aad iyo aad u mahadsan tahay waxa meesha ka muuqda waa midnimo way dadkii shafka la isa saaraya waxa weeye sawirada la isla galayo ma malayn karaysid dadkii صورنا يا ولد شركة شرايط باب العمان وملاينا يا حقي شركة شرايط باب الدقاقي labada calan Ja? بسم الله الرحمن الرحيم مركورة محمد بن عثمان ماشي كراود ماشي كراود انت كلام خير عبد الواسع دي نقروط وقطع
በዛሬው ዕለት የኦብነግ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር በሀገሪቷ ባለው አጠቃላይ ለውጥና ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ አጠቃላይ በኢትዮጵያ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች በትግል የሚንቀሳቀሱና በሌላ መልኩ ስክባል صدق بالزحمة جمع بالزحمة جوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بقول الله يا مقعيقة
magaca golaha dhexe ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya magaca xubnaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya aad iyo aad baan u salaamahayaa haweynaha sharafta leh ee maanta nagu soo dhaweeyey ee gobolka sababa nagu soo dhaweeyey aad iyo aad baan mahadcelinaya salaan diiranna waan u soo jeedinayaa waa maalin runtii cusub weeye halgan dheer oo hal ummadda soomaalida ogaadeynaya ay soo waday muddo dheer ka bacdi maanta waxaa ay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeynaya ay goosatay iyadoo golaheeda dhexa u maraysa in ay halgankoodii gobonnimadoonka ahaa hab nabadgelyo ay ku sii wadaan ay go'aansadeen saas daraaddeed baanu halkan u nimid halgankayagana nagu ujeedadu ay sidii tahay halkii baanu ka sii wadaynaa hab nabadgelyo ayaanu u sii wadaynaa haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad baanu faraxsanahay ummaddan wanaagsanayna soo dhaweysay dalkayagii baanu haddii aan la yidhaahdo tegaynaa ummaddayada iyaanu يعني أبابلنا ونكون حجرنا ونحلق قبلنا وحي حقوق وضع إلى حلال رفوكي ونما يسترنا سيدي أي مطقان يعني كدنا علينا وحن حجيرنا دولة نياكي دولة إثيوبيا فدرال كوباينا يمتاز وحي حقوقها أي لهايين سنة بتقليه سنة قومية لها قرينة وحلال وحي مصير كودنا إيو أي كتشدان marka aad iyo aad baan u faraxsanahay soo dhaweynta diiran waxaanan u rajaynaynaa in ummadaha dalkan ku nool inay si nabadgelya u wada noolaadaan xuquuqdoodana si siman ay u wada helaan qof walbana uu isagu masiirkiisa ka tashado oo siduu doonahayo mataqaana waayihiisa uga tashado aad iyo aad baad u mahadsantihiin insha allahu khayr baynu ku wada joogi doonaa howlaheennana khayr baynu ku wada wadan doonaa haddii aan la yidhaahdo guula waynu wada gaari doonaa haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin khayr allah idin siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وقت
wax wiiqaya inaan maanta dardaaran ku soo jeediyo aad ugu faraxsanahay sababta waan soo إن شاء الله في أحسن Popular demand for their rights, including democratic governance, of law, the rule of law. All principles will be rejected in the status quo after more than 20 decades of human rights violations all over the country. OILF was created in 1984 in order to see the democratic rights of Somali people. The Somali regional state of Ogaden, including the right of choice, Somali people should manage their own destiny and well-being. From the beginning, OILF was committed to seeking the rights of Somali people through peaceful means. And when Ethiopia changed in 1991, OILF fully participated in the new political order to won the first election ever held in the Somali history in institutions. However, from the beginning, it started the last for more than 20 years. When Prime Minister Abiy took power in April, and all support in kind in August 2018, one of the larger declared a ceasefire in response to Prime Minister Abiy's call for peace to all of Ethiopia, or all people of Ethiopia. This brought hope to Somali people who are subjected to the most inhuman right violations
ما يصدق يمكن اخذ في عم بركات والله فلوته فريين هذا قطر كعبين يكتبي هل كان وحن وياري هو عمبرة فرين تبع ينصو كتبين يسمع عن دقيسنو ما أنت كور هو يسات حال شعور هذا ما شاء الله شعورت يريد معه لما سكوت كرم ما أنت وحولي السورية أيام ماشان لقل ماي عالك أو نلف أرض سبابة حالي أرض سبان هو يدي عالك أو نلف أرض سبابة طريق والبصرة أيام ساك أركي ومعجزة ويا واحد سوى نروي وضحد أو نلف يتاجر يا شيء يتذكر إلى هي لو كنت دوق من مدرسة أيام ساك عن لقل ماي ديارتي بانو يعني تغني وسو دويني الحمد لله رب العالمين ساك قرانشد وين اديغيسا قرانشدا اديغيسا iska daa wax kale tii waagi hore waxa ku salaamaysa Firdawsa Ahmed iyo Kawsar Dacar waxay ku leeyihiin aad baan ku salaameynaa idu maxaad fariin dadka dibadaha jooga maxaad fariin u fariin dibadda jooga oo dhan gabdhaha iyo ahbaabtayda waxaan idhi askar saaq qadim gabdhaheena laqankeena إلا اللي بنت قاعدين لو دينا ويانه كوا سان ولا والد بهو بدنا هاي كتبية كوا يرجع والد بانه كوا وين ولا لا قبلها وان كتش على تويري توين وان كتش على حكومة هو يمعاني هو يقبلها يقول والد سود وين يا وين ما طاين سنة ما هو يوقفشني آليات بعدين سلام يا نفط يا قلبي بارك عندك سلام وياي أدو بعسنت هاي ماما عنبره والله بحيا إمك وحلا تجي حفلة كلا أيا ديارسن مركا dadkiina nala socday aad iyo aad baad ma santiin xafladeeni waxay ku socotaa halkaas ay waxaan u maleynayaa ay ku eg tahay intiini live ka noola socotay intii kale ma idinkaan idin mahad celiyay mise anad idin mahad celinaysaan waxaan jeclahay inaan idin mahad celisaan aan isku qabto okay wait warbixinta
xafladii waad aragtaan way soo dhammaanaysaa iminka wixii iminka dambeeya waan baxaynaa jeclaan lahaa markaan sharatoonka tagno sharatoonka inaan idinkala soo xidhino waxaan idin leeyahay maanta waa guul weeye waxaad arkaysaan farxaddaasaa taagan labadii shacabkii soomaalida oo dhan oo wada midoobay oo halkaas isugu wada yimid marka wixii fariinaan idin gaarsiinaya waxaa weye dadkeenna dibadaha jooga iyo kuwa deegaanka jooga ee maanta nasiib ku yeelan inay xafladda yimaadaan waxaan idinka qabtiraynaa inaan idiin soo tebinay si toosa wax alla wixii horumar halka ka yimaada aad baad umahadsantihiin وايه لايف نبراو ايشي واك ها ايوه وش عندك أنا عداني ايوه كان مردو مالك هل عداني لايف باكو جرا موتاي maxaad farinta soo dhaweynta maanta maxaad u malaynaysaa waa farmaanta taariikhda gashay soo maanta haye berida taariikhda galaysa sax waa jigjiga berito haye waa banka carafaad haye jigjiga waxa dhan baa timid haye waxa dhan baa timid sax marka maalin taariikhda gashay haye meeshuna waa Addis Ababa haye Soomaali lagu soo dhaweeyay maanta calankii jooxo oo ka lulanaya Addis Ababa wadooyinka aad martay say kula tahay waa arrin cusub weey haye adduunka ku cusub weey haye Addis Ababa ku cusub weey haye Soomaalida ku cusub weey haye taariikhda ku cusub weey haye magacaaga haye maxamed ugaas maxaad u malaynaysaa soo dhaweynta saad si fiican bay u habaysnayd oo qorshaysan maalin farxad la weeye annagoo dhinacnay waan ku faraxsanay inaan soo dhaweyno maaragtay dhinacyada kala duwan haye waa aad bay baasanta weliba asaamo ka baxday mise waad sii joogtay shaqalada ninka u horeeyay yimid baa ahay xalit wala dhisaaba ka warasay ahayd xaaladu laakiin hadda wafdigan la socday mar labaad wafdigan la socday saaka way tagaad ahayd aad baan wasna maxamed ugaas haye شافي آذن شافي فوان قرر واسفر شافي آذن بالكور آذن واجلسك شافي آذن يقور سودوينتا ومالين وين ومالين فرحان aad baan u faraxsanahay inaan dalkanaga gooyo muddo dheer oo lagu jiray struggle in dalkeena isbedel ka dhaco dadkeena ay helaan xorriyad ay helaan maaragtay inay u dhaqaaqaan xaq ay u leeyihiin ay hada ka tashadaan xaq ay u leeyihiin si xor ah oo fikirkooda u cabiraan maanta waa maalin runtii taariikhi ah aad iyo aad u weyn maanta ururkii ONF oo 20 sano u dagaalamayay oo qayb ka ahayn dadaalkii فردوس أحمد وأبو سلامة إنسان كان يحكي له وذ هالجنكي فردوس أحمد وحاسبي كان شغله والله أي محاضر ملان إمك وحي كتم بي إن الدجاج الصومالي ذا عدي كعنت اللي سخبص الله الشعب الصومالي ومدوه محاضر ملان يسبدل أنت لك باي من كرا runtii isbedel weyn baan rajaynayna haddii aan idhaahdo annaga oo garabsanayna dowlad deegaanka Soomaalida oo hogaaminaya runtii nin dhalinyaro oo maskax furan Mustafa Maxamed Cumar iyo annaga oo runtii dadaal badan ku kordhin doona haddii aan idhaahdo annaga is garabsanayna waxaan rajaynayna insha Allah wax weyn wada qabsan doona وأدي أدب ما صدق شافي شعب بايدي سوقي تشجيع أنا بريتي أنا تشجيع محاورنا صدق تشجيع فرين محل قد بالله هاي تشجيع وحنا ندقو هاي دشيان ماركتي نبغينا ماركتي كشقيان madaxdoodana ha soo dhaweeyaan insha Allah way mudan yihiin in la soo dhaweeyo aad iyo aad baad maasanta ay shaafi aan wali waxaan isku kala jirnaa madaxdii ma soo bixin waa sharaab la cabiya biyo la cabiya dal safar dheer bi ka soo galeen marka waxaan isku dayeynaa in aan ma dadka qaarkii aan la kulano baski jooga ma tigi wali jooga wali meena soo bixin sawirra la isla galaya هاي كور حالات سو دوينتا بسم الله لما بقياس كرو حالات ما انت كدعده halka soo dhaweynta kaasay mareysay هاي مصطفى والله ان في كتمد كينيا ما ku jiraan يا jooga والله gudaha way baxay mar malayna haday maadaama soo qaban haye haye marka soo dhaweyntu maanta waxay heerkeeda aad u sareeyay waxay yimid madaxda u sareysa waxay yimid deegaanka oo madaxda ugu sareysay oo ay ku jiraan maxamed wasiirka maaliyadda haye wasiirka maaliyadda galana wasiirka maaliyadda oo kale mubashir haye dibada oo kale yahay ku jiraan madaxweynihii dawladda deegaanka iyo dhammaan wax garadkii iyo akhyaartii dad fara badan baa idin salaamay maxaad u malaynaysaa waa idin leeyahay soo dhaweyntan maxay saameyn yeelanaysaa
waxay yeelanaysaa in the history maynan dhicin ama taariikhiyan maynan dhicin in ay dhacdo in taariikhda laga gaadho dhibaatada gobolka Soomaalida laga gaadho wasiir ay mooshir baan galay mooshir aad maxay oran lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim maalin taariikhi ah in garoonka Addis Ababa uu joogna shabadii oo laf oo wadankeedii ku soo laabatay iyo xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida iyo dawladda deegaanka Soomaalida iyo shacabweynaha halka ku yimaadaan ku kulmaan niman saaxiib nahay oo hore ay sheegay oo lahaa waqtigiisii 1991 kii ba ahayd markii ugu horeysay gudoomiyihii uu soo galo maanta waa maalintii labaad ee taariikhda ah kala waaya maxamed aad jeena ku qabantahay kala waayahay ودميار ده وكسر محمد شغال المحل ولا لسه ما أنت حالات سهل. قلت آديات بنفرح سنة هاي شعورت هذه آديات بنصر رئيسها ومعلن غالية ومعلن تاريخ ده سويني كنت هنا وحيقولوا تهاي شعب الصومالية ده كل قن دولة ده الصومالية بودهان وعنا لنا هاي معدة إلهي بإسكاله شعب كان وحيقوموا جنة سارين تاني من نمو يهورين سعشو إن لقى والله شقيو سيدي ومداسي ووجه سمة بحنا لعبتين كان بعد ما تنتهي. أي واحد خضر محل إذا بسم الله الرحمن الرحيم أنا الدنيا أفضل دانتا بسوا رناتي وحن أدرس من نبأ يعني ما أنتظر ولا عرفنا ما شاء الله أدنى وفرح سناي والله حري وحن يعني له نقول جرسي إن هذه ضد إن بدل نجمع قناع أنا عرفنا وإيش هي جالسين في عنها عن والله صارنا ما كنا تقولوا وهذا وسام فرح سنة السكة بمبر منها إن شاء الله يعني أنا فرح سنة أدنى سوق ويني ما نقول هذا كنا كوي شوغان هذه أدنى ما سنتين ذيك أنا وحن ذي الشيء أغل أي waxaad arkaysaan soo dhaweyntii waa socoto weli waa la fariisay iminka dadkii waa la kala degay way iska sheekaysanayaan madaxdii gooni gooni iyagoo u sheekaysanaya marka balaan u dhowaanaan isku dayna inaan u dhowaano waa gabadhaas arkaysaan waa wasiiru dowlaha arrimaha dibadda وزيرة برتقال أيانا حسن معه حسن معه كان كلامه بان هذا حسن أمشي والله أي هي هذا قسم عبد السلام عبد الله حسن معلني عبد السلام وبعنا حسن على إنجر فريم من غير ربي أمشي halkan waxa taagan waa xasan macalin xasan in waxa shacab badan oo daawanay live baan ku jirnaa soo dhaweynta ka horseehay runtii maanta aad iyo aad baan u faraxsanahay waa maalin taariikhi ah soo dhaweynta sida loo soo dhaweeyay heer sare ahayd waa maalin cusub baabariyay taariikhda ogaadeenayaan baal dahab ayay ka galaysaa runtii aad iyo aad baan loo soo dhaweeyay aad iyo aad baan u faraxsanahay ummadda shacabka Soomaalida ogaadeenaya dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool ogaadeenaya waxa loo jeedinaa in ay ku noolaadaan nabad barwaaqo bashbash iyo horumar waara dad badan baa ku salaamaya Firdawsi Axmed ka mid tahay Bishaar Cusmaan oo ku salaamayaan marka maxaad oran lahayd dadka dibadaha jooga maanta ee ka maqan inay dareenkooda halkan ku cabiraan sideed ugu sheegi lahayd dareenkaaga runtii maanta waa maalin taariikhi ah hadda ka hor sheegay waa baal cusub oo ummadda Soomaalida ogaadeenaya soo hiday shucuurteedana ma soo koobi karo waxaan wadan ka maqnaa muddo 4 sano inaan wadankii hooyo ku soo laabto oo aan dawladda Itoobiya heshiis galno oo ummadda ayaheeda ay ka tashato aad iyo aad baan u faraxsanahay runtii waa ma soo koobi karo dareenka aan maanta dareensanahay xaaladda iyo duruufta aan ku jiro iyo shacabka Soomaalida ogaadeenaya oo in badan dulmanaa oo rajaynayo dulmiga iyo gumaysiga iyo bahdilka inay ka bixi doonaan insha Allah waqtiga gudii wayna bilaabantay waana sii wada doonaa ummadana waxaan u rajaynaynaa guuliyo goboliyo macnaheedu taa micnaheedu waxa weeye halgankii Soomaalida ogaadeenaya ayaa waxa lagu sii wadayaa si nabadgelyo ah heshiiska sida loola galay dawladda Itoobiya iyo dawladda deegaanka Soomaalida oo warkacayo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waaya aad iyo aad baad u mahadsantahay barina waxaan filaynaa in jijiga sida ay si ka darleedii soo dhaweyn doono waaya haddaynu soo eegno صح ندير به وفعلا افتح
waxaan ku jirnaa tabin live aan ku jirnaa marka xagan waxa weeye waa Cabditax Sheekh Cabdullaahi Yare wasiirka Itoobiya amba wasiirkii horena ah mudane Cabditax balka hor mudane iga war Cabditax xaaladda maanta iyo shucuurtaada waa siday dareenkaaga soo dhaweyntan saad u malaynaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim runtii maanta waxa weeyaan maalin taariikhi ah sidaan dhammaanteen ka warhayno dowladda Itoobiya iyo jabhadda waddanka Kenya waxay magaaladaas markaa ku kala saareen heshiis lagu soo afjarayo colaadii muddada dheer soo ragaadisay deegaankeenna taasoo runtii u furtay baaldahaba dadka ku nool dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo sidoo kale dhammaan dadweynaha Itoobiya shacabka Soomaaliyeed muddooyinkii la soo dhaafay dhibaatooyin fara badan oo dhanka nabadgelyo darrada ayaa la soo diristay taasoo runtii wiiqday hannaanka guud ee maamulka iyo sidoo kale howlaha kale dalka kaana qaaday waxaan ognahay shacabka Soomaaliyeed in shacabka Soomaaliyeed runtii ay u oomanaayeen inay helaan ay ka tashi iyo guud ahaanba howlaha kale ee dalkan kaana qaaday hadday tahay xuquuqdooda guud ahaan dimuqraadiyadeed iyo kuwa kale ee markaasi aadamada marka maanta waxaan runtii dareemaynaa in walaalihii kala maqnaa muddada fara badan dad dhexdooda la dhiga colaadda ay isu yimaadeen isu soo hiloobeen isla markaasna ay si wada jir uga tashanayaan danta shacabkooda taasoo runtii wax walba soo kordhinaysa waayahay ambassador aad baan inaan ka dhex galaan jeclaan laakiin dad badan baa ku salaamay oo kula socda imika waa la dhaqaaqay dad jeclaan lahaydeen inaan wax su'aalaha weydiino madaxweynaha iyo admiraalka waad soo qori lahaydeen waa la dhaqaaqay imika laakiin taas waxay ahayd ciyaarihii dhaqanka kooxaha fanka ay soo tabinayeen waa kan admiraalkii uu soo baxay waayahay
عضوات كرعة waan baxaynaa wixii mi ka dambeeyay waxa weeye uu go'aya baalku waxaan filaynaa No, so come back. وزير دوليه وزير برتقال يا زاري يقول انديت نبري اقبابلو ايش ايش انت ጨፈራው እንዴት ነበር የባህላዊ ዛሬ የሶማሌ ባህላዊ ልብስ ነው የምትለብሰው እንዴት ነው ያምራል እንግዲህ የሶማሌ ክልል ባህል አንዱ የኢትዮጵያ ባህል ነው የራሳችን ባህል ነው ሼር እናደርጋለን በጣም አመሰግናለሁ ሲስተር እምካ waxaan waan babaxaynaa halka iyo meeshii la dejinayay madaxda marka waxaan idin leeyahay saasan isku مع السلامين ها بسكي سميالو وهي هي وان مع السلامين هنا انا اسكو سو جيديه بل انتي نغلا قيب قادتي برنامجكن iyo barnaamijkii aan saaka bilownay maalinta xasan ku soo gabagabeynayna والسلام عليكم هذا يا ما سنتها بير بشار عثمان انا waan kaaga maad celintaas marka aad iyo aad ma santiin oo